Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale iyo farshaxan. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa qiso yar oo ku saabsan hogaamiyaha dhabta ah. Runtii markaynu hogaamiye leenahay hogaamiyaheenii ama hogaamiyihii dunida waa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Halkuu hogaamiyenimo gaarsiiyay wali cidima gaarsiinin, horena looma gaarsiin. Halkuu hogaamiyenimo gaarsiiyay wali cidima gaarsiin, lana gaarsiin maayo, lamana soo gaarsiin. Haddaba intuu ka soo bilaabay hal qof Nabigu sallallahu alayhi wasallam waa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu saaxiibkii ayuu ku gaarsiiyay malaayiin qof oo dunida kamid ah oo maanta dunida boqolkiiba 50 ama boqolkiiba 45 ka gaaraya muslimiinta. taasi waxa weeyaan hogaamin waxay adduunyo iyo mid aakhiro labadaba, laakiin waxa xoog la saarayay hogaamin aakhiro. waayo hogaaminta aakhiro marka ay hagaagto ay hogaaminta adduunkuna hagaagaysaa. waxaan ka yara sheekaynaynaa in cafisku muhiim tahay. hogaamiyaha dhabtii waa ka wax cafiya. Nabigu sallallahu alayhi wasallam inta jeer ee wax cafiyay dad gaala ah xataa oo qalad ka galay inta uu cafiyay tira ma leh. Iscafintu waxa ay dhistaa bulshada. bulsho xiqdi iyo qamuumiyo iyo xanaaq ku salaysan waxba ma kororsato iyadoo baana is dhamaysa sida maanta Soomaalideenu tahay. waynu ognahay wixii ka dhacay wadanka Rwanda, sidii Tutsigii iyo qabiiladii kale ay isku laayeen isku mariyeen ee la istirtiray. maxaa lagu daweeyay? hadda muslimiinna ma waxa lagu daweeyay waa cafis. cafisku marka aakhiro iyo adduun labadaba wax u qabtaa, waana waxyaabaha hogaamintu ay ku dhisan tahay. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam reer markii sida ay u dhibeen ay uga saareen dadkiisii iyo dalkiisii iyo maalkiisii, haddana markii dambe uu soo awoodeystay oo ciidanka soo sameystay ee uu Madiina dawladda Islaamka ka soo dhisay ee uu Makka qabsanayay, markuu soo dul degay maxaad iga filanaysaan buu ku yiri. inaad kicisay oo barakicisay oo waxba ula hadhin oo asxaabtiisii badad laysay, badad qafaalatay, badad aad ka dhigtay oo isagana 200 oo geel aad ku xidho halaad 200 halaad ba la siinay ninka nabiga iyo soo qabtay Abu Bakr sallallahu alayhi wasallam. maxaad ka filaysaa? waa inuu isna ku xasuuqo nabigu way iska cafiyay. waxba may tarteen hadduu markii la dagaalami lahaa, waanu ka awood badnaa, waxbana may tarteen, laakiin nabigu ujeedo ka weyn buu lahaa. ujeedo ka weyn oo markii dambe xataa dad aan la dagaalamin ba iska soo muslimaan. hogaamiyihii kale muslimiinta Umar bin Abdul Aziz waa kii lahaa ummadda islaamka u soo jeeday idinkoo aamusan islaamka faafiyo gaarsiiya. muslimiintii baa ku tiri oo sideenu u gaarsiinaa anagoo aamusan. markaasuu yiri dhaqankiina tusa. qofka markaad wanaajiso hadduu qofku ku xumeeyo wanaag ugu bedesho wanaag oo cafiso qofku isaga isla yaabay marka dambe isku noqonaya. waana asbaabaha lagu kasbado qulubta dadka. nabigu waa kiiska cafiyay mar kale markii ay dhibeen ee xataa reeda ay hayso nabiga soo dhaawaceen oo kii ku yiri waatii lagu yiri labadii malag ee buuraha ayaa lagu keenay. labada buurada markii ku dhex jirta isku qabtaan inagu amar u nasi waa kii ku yiri may kuwa lafahooda kuwa dhabarkooda ku jiraayaan ka sugayay in diinta u gargaaraan. waana sidii wayna noqoto inuu gargaareen. marka hogaaminta iscafintu mar walba oo muhiim waxay rukunada waaweyn ee hogaamintu ku taagan tahay ama leadershipku ama qiyaada ay ka mid tahay iscafintu. marka laga yimaado diinteena islaamka iyo hogaamiyihii dunida ee xataa gaalada ay u qirtay, xataa gaalada buugteeda ku qortay in hogaamintii koobaad ay ahayd Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ilaa maanta shaqeynaysa. hogaamiye kale way soo mareen, laakiin ka ugu badan 100 sano 200 ay hogaaminayeen. isagoo imika 1440 sano 1400 sano ku dhawaad ay hogaamintiisa sii shaqeynaysa. waana sii shaqeynaysa ay dunida joogayso ilaa la laabo. waxa jirta qisooyinka hogaamiyeyaashu ka tageen. ninkii Mahatma Gandhi ee Hindiya hogaamiyey xorriyadda Hindiya isagoo maalin ordayo tareen gaadhaya ayay ka dhacday. dabeetana kab kaliya ayuu tareenkii la fuulay. dabeetana saaxiibkiina wuu la socday. kabtii markuu la fuulay buu kabtii xoog u soo tuuray isagoo ula degdegaya halkii kabta kale ay kaga dhacday inuu gaarsiiyo. markaasuu ku yiri waa aad u tuurtay kabta, maxaad iska tuuraysaa kabtaada? markaasuu damar hadda kabtii kale iga dhacday aniga waxbay qaban maysaa, miskiinka yar Hindiga ee helaa ha anfacdo. markuu laba mid hela ha anfacdo, waayo anigana ay anficmaysa xabad kaliya isna anficmaysa xabad kaliya. marka hogaamintu cafintu waa muhiim iyo isdhibruntu iyo isdhuldhigu. ninkii la oran jiray Nelson Mandela hogaamiyey xorriyadda ee dalka South Africa ama Afrika guud ahaanteedba muxuu sameeyay isna maalmaha kamid ah markuu madaxweynaha ahaa 27 sano xataa ninka la soo xiray 27 sano jeel ku jiray.
markii uu hogaamiyaha noqday ee uu dalka Koonfur Afrika u noqday madaxweynaha maalmaha kamid ah habeenada kamid ah ayuu ilaaladiisii amray inay magaalada ku soo wareegaan ay soo eegaan mada habsami socodka bulshada ee habeenka dabeetana iyagu soo wareegay markii dambe waxay soo galeen maqaaxi meel laga cunteeyo intii kabalyeeriga ama waiterkii ama mudalabkii ugu maqnaayeen dalabkii ayuu Nelson Mandela nin halka fadhiyeesha ku dhuftay dabeetana ilaaladiisii mid kamid ah wuxuu ku yiri ninka u yeedh oo cuntada haynala wadaago haynala cunay ninka inoo yeedh ninkii baa loo yeedhay ninkii baa gariir bilaabay intaan cuntada la keeninba isagoo saa u gariiriyay gabigiisuba nimankii shaqaale la fadhiyay baa yaabay talo maxaa uu ninkani ka cabsoonaya waa maxay waxani cuntadii de muxuu cunay waa naf gariiriso beerku saa u rugmanayay wadnaha siliga saa soo taabanayay marka dabeetana markii cuntadii la dhameystay isagoo keenada laba jeer aan waxba qaadanay leen halkan ma mareysay qooli baa leeyahay qoor qabasho kuma biyo cabto ma cuntada qasab ma noqonaysa nafta lagu qasbay moogta marka ninkii wuxuu sameeyay madaxweynihii iyo markay kaceen ay ilaaladiisi weydiiyeen madaxweyne muxuu ahaa ninkani wuxuu ahaa ninkan miyaad garanaysaan may ninkani wuxuu ahaa markii aan jeelka ku jireen xidhnaa ayaa marka aad la ii jirdilay la ii garaacayaan ku dhawaaqi jiray ku qaylin jiray koobiyaasiya dabeetana isaga intuu ii yimaado dusha madaxayga ka jiray buu isagoo igu jeesjeesay dabeetana imka wuxuu moodayaa inaan ana xidhayo ama aan dilayo ka argudanayo laakiin aan waxba taa kuma falayo waayo hogaaminteeda ay dhaawacaysaa buu wala daayay hogaaminteeda ay dhaawacaysaa marka cafisku mar walba waa muhiim inaad qofka cafisa ka ugu cafiska badan bana loogu jeceliyay uguna soo jiidasho badan dadka waayo markasta nacayb iyo jacayl waxa weeyaan jacaylku ma badiyo markasta waxa la waxa aynu daawanayna adduunyada gabigeedu waa shar iyo khayr tartamaya filim kasto daawataa waxa weeyaan shar iyo khayr tartamaya ujeedada u dambeysay leeyihiin ama basheeka xariirooyinkeen iyo kale waa shar iyo khayr tartamaya run iyo been tartamaya sharka iyo khayrka haba raago oo waqtigiisu sharka ha raagay laakiin khayrka uma dambeeya khayrku ma guuleysto waa sidii nolosha adduunyada iyo sunnaha Ilaahay u dhigay tahay muslimiinta weligood baa la garaaco Falastiin lagu garaaco Soomaaliya lagu garaaco Ciraaq lagu garaaco Suuriya lagu garaaco Yemen lagu garaaco aakhirka ku guuleysanaya waa iyaga marka iscafintu waa muhiim dadka oo dhan inay iscafiyaan maaha hogaamiyuhun maaha bulshada dhexdeedu inay iscafisaana waa wax aad u muhiim ah marka maanta qormadeenu intaas ay noogu kooban tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh muuqaalkan ugu yaraan sii gaarsii qof ugu yaraan hal qof sii gaarsii si uu sii faafo una gaadho asxaabtaada wad mahadsantihiin